dhiirigelin iyo wacyigelin iyo dardargelin iyo sidii loogu talagalay nagu bilaabi doonaa guddoomiyaha gobolka oo ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenka taliyaha qaybta xogayaha gobolka xogayaha degmada macalinka gobolka dhammaan xubnaha kale ee halkan fadhida xildhibaanka dhammaantiin waxaan ku salaamay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marlabaadka halkan warbixin kooban waan soo koobayaa maanta haddaan nahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka togdheer waan isdugu yahay maanta guddoomiye waxaa noo qarsoomay dhalinyaradii gobolka togdheer oo walaalihii togdheer ah 3 xul ayaanu samaynay 3 xul halkan bay fadhiyaan guddoomiye maanta calamitadu waa maalintii 14aad gacmaha ayay saystaan maanta waxay u baahan yihiin sidii dardigelin loogu gelin lahaa sidii kor loogu soo qaadi lahaa iyaga oo maanta u baahan dhaqaalihii iyo gacan qabashadoodii iyo sidii loo qaadi lahaa sida kale haddaan nahay wasaaradda dhalinyarada isku ahay waxaan u magacaabnay 4 macallin 4 macallin waan u mahad celinaynaa iyagoo kalsoonidoodii iyo sharaftoodii muujiyay iyaguna sidii ay shaqadu ahayd oo ay u socoto maanta waxaa halkan ka go'an gobolkii togdheer dhalinyaradii inay maanta koobka inoo soo qaadi doonaan ordo iyo baasi iyo kubad cagba waxaa lagu talagalay guushii laga fili jiray gobolka togdheer in maanta ay inoo muuqato gobollada aynu ka horeyno qaranka Soomaaliland qurbajoog iyo qolqoljoog meel kastoo adduunyada ku nool yihiin gobolka togdheerna ay maanta farxadoodu ka muuqato iyadoo aan la ciyaarin sidaa ay maanta ay u muuqdaan guddoomiye waxaan halkan sharaf iyo qiimo nagu ah oo maanta noo magaca haddaan nahay isduwa wasaaradda ciyaaraha iyo wasaaraddeedaba inaanu tacabkii aanu soo gelinay annagana ay noo muuqato maanta gobolkii togdheer aanu wareegyo soo qabanay live tacabkiina nagama qasaarooyin maanta hadday gacmaha haystaan annaguna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaanu jecelnahay iduguna inaad ku sii farxi doontaan magac iyo maamuusna ay gobolka u sooyin doonaan waxaa naga dhimanuun sidii maanta iyagana gacan loo qaban lahaa wixii ay agab u baahan yihiin wixii ay dhaqaale u baahan yihiin in iyagana la dardargeliyo oo fadhigana looga kaco guddida qabanqaabadana oo guddoomiye ku-xigeenku ka koob yahay waxaanu jecelnahay isagana ugu mahad celinaynaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee guddoomiye ku-xigeenkuna isaguna ula shaqaynayo guddidii kalena waxaanu jecelnahay inay ka howlgasho oo guddoomiyaha ku-xigeenka iyo guddoomiyana waxaanu jecelnahay isaguna inaanu ka hadhin mar walba uu dhaqaajiyo sidii inamadaasina mar walba iyagana aad dardargeli lahaydeen maanta gobolkii togdheer qiimihiisii iyo sharaftiisii way noo muuqataa iyadoo aan ka faa'iidaysanayo halkan waxaan baaq u dirayaa qurbajoogga iyo ganacsatayaasha gobolka togdheer meel kastoo ay ku nool yihiin maanta gobolkii waad aragtaan inamadu waxay u baahan yihiin inay magac iyo maamuus inoo soo hooyaan waxaan leeyahay guddida qabanqaabada iyo guddoomiyahaba inaad la shaqaysaan oo sharaftii ay doonayaan idinkuna adeegtaan idinkuna waxba aan ka hagran wixii ay iyaguna idin faraan aad yeeshaan ayaan leeyahay waxaa noo hadhay waa 12 casho 12 casho waxaan jecelahay inaad la meeraysan ee aad gacan siisaan hadduu ilaahay ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kale waxaan ku soo dhaweynayaa oo ugu horeysiinayaa raadaada guddoomiyaha gobolka oo sugu hawl degdeg u baxay ku soo dhaweeyaa saacad loo garaac bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam awalan ilaah baa mahad leh waxaan dhammaantiin idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnabaadka waxaan ku bilaabaya hadalkayga Soomaaliland ha guulaysato ciyaartooyda gobolka togdheer ha guulayso ciyaartooyda gobolka togdheer ha guulayso ciyaartooyda gobolka togdheer ha midoobo sidoo hore ugu midaysnaan jiray saa maanta u midaysantiin ha ku samaato ha ku dhammaato intaas waa intaa haddaan intaa ka gudbo burco waxay ahayd gobol ilaa ingiriiskii bahdeeda ciyaaruhu ay qiimo weyn dalka ku lahaayeen hadday tahay kubadda cagta hadday tahay koliga hadday tahay foolida hadday tahay xeegada hadday tahay orodada hadday tahay ciyaar soomaaliga hadday tahay gabayada
fandhi kastoo ciyaari leedahay wuxuu ku lahaan jiray qiimo badan waqtiyadii la isku keeni jiray Soomaaliya ee idaan idinku jirin waa ogtihiin raggii ka ciyaari jiray iyo ciddii weerarto Faarax Xariglaahay iyo Cali Bashiir kan iyo halkan ragga fadhiya waa raggii magaca ku lahaa gobolka soo hooyay Soomaaliya Kismaayo ugu adkay Kismaayo waxa qurays ka celin jiray gobolka Togdheer ku ahaa oo loo yiqiinay libaaxyada Afrika maanta waxa la inooga baahan yahay marka hore subcadii aynu lahaan jiray subcadii ay radin lahaayeen subcadii aabiyaajin ku lahayd ciyaaraha subcadii Togdheer ku lahayd ciyaaraha inay soo celisaan burco waxay caan ku ahayd dulqaad ciyaar wanaag diin maxaan ku dhahdaa ismaqal qabyaalad la'aan ayay caan ku ahayd ciyaareen intii maanta dhalinyaradiina joogtay mustaqbalkani inay intii yeelataan baa idinka doonaya anigu waxaan maalintii ka qayb galay isku soo aadkii gobollada baktiinasiibkii loo qaadayay waan ka faanay halkaa waxaan jecelahay faanka aan faanay inay mataqaan kaga dhabaysaan faanka aan faanay inuu rogoobo waxaynu kubadda cagtu mataqaana aynu ku jira waa Gibiley iyo Sool halkan cali baa joogo taliya qaybiidkii reer Gibiley aanu isu faanaan ku yidhi dee waa mataqaana waa soo gabi doontaa maanta iska soo badino haddaad Gibiley aad iyo aad baan soo dhaweynayaa taa haddaa ka gudbo waxaan idin badan qaadaynaa waxaanu ku dadaalaynaa baahi kastoo aanu awoodno oo idinku timaada inaanu idinla qaybsanno waxaanu doonaynaa muddadaa yara kooban noo hadhay annana inaanu shaqayno idinna aad shaqaysaan annaku inaanu shaqayno wixii baahideena aynu dabooli karno aynu ku dhaqaaqno ayaanu doonaynaa wixii baahideena aynu dabooli karno inaynu ku dhaqaaqno ayaan doonaynaa idinkuna inaad mataqaanaa cagtiinnii iyo gacantiinnii iyo orodkiinnii aad ku dadaashaan waxaan halkan aad iyo aad ugu mahad celinayaa tababarada Siciid Xiire iyo Hayaan ay ka mid yihiin iyo ninka la yidhaahdo Shiine Ceeri ay ka mid yihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan ee isku duubnimada ay idin wadaan kollayba annaka ayaa culaysku saaran yahay inaanu baahiyihiina taagan wixii aanu ka dabooli karno aanu ka daboolno annagoo kaashanayna ganacsada magaalada madaxda magaalada aqoon-yahankii hore ee ciyaari jiray ee halkan joogay iyo hadday tahay mataqaanaa ninka la yidhaahdo Faarax Xarigle iyo gruubkiisa iyo Jaakaraacin iyo gruubkii caynkaas ee joogi jiray innagoo kaashanayna waan halkan ku soo dhaweynayaa Mubaarak oo inoo keenay qalabkan inagu wareejinaya iminka Mubaarak Yuusufna aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana ka gudboonaynaa qalabkaa inoogu soo talagalay waa ka gudboonayaa waxaan leeyahay Mubaarakow halkaad ka soo saartay meel ka fiican ilaahay kuugu bedelo waa isbirid dhalinyaradeennii ah waa inoo keenay maryaha kubadaha qolada sport qolada mataqaana baasidku waxay ka cabanayeen kubad la'aan wixii aad ka cabanaysaana waxay soo gudbin doonaa isduwaha iyo guddida waxa aanu ka qaban karno waanu ka qabanaynaa taana ballanqaad ayaan idiin samaynayaa aad iyo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa guul iyo gobonni baan u jeedna burco guul baanu leenahay guul baanu leenahay guul baanu leenahay waxaan kala wareegnay Mubaarak Yuusuf diraysadii finalka oo ah orjinaal iyo kubadaha oo inoo keenay Mubaarakow aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa hawshaa wanaagsan ee dhalinyaradeennii milaysnayd aad u keentay waanu kaa guddoomnay aween hawl kale oo ogtihiin mataqaana inay gobolka soo fool leedahay ayaan ugu hormaray oo ay sugaysa oo mataqaana markaas saasay dhalinyaro si kale uma tagin saasaa adeerayaal iyo awowyaal aan adalka u bilaabay saasaa raalliga noqonaysaan hawshiinana guddidii aan u xilsaaray ee guddoomiye ku-xigeenka iyo isduwaha iyo xubnaha kale ku jiraan ayaa wixii baahida ay u soo gudbinaysaan aniguna idinkama bixin guddidana kama madhi mar walba beeljoog baan baahiina u ahay wixii aan qaban karana waan qabanayaa wixii aan haaban karana waan haabanayaa
wixii ay noo suurteen weynadu waynu ka wada hadlaynaa laakiin waxaan jeclay boqolkiiba 99 inay noo hirgalaan markaynu weynana isku calaanan mayno Yeah.